Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada muuqaal cusub iyo wax yaro fudud oo ilmahaagan ay ka heli doonaan suugo yaro macaan badan, ama waxaan diyaarsan doonaa maraq yar oo ilmaha ay ka heli doonaan oo macaan badan oo chicken iyo khudaar ka samaysan doonaa insha Allah. waa xabad kaarood xabad qajaar xabad yaanyo iyo basal iyo insha Allah iyo chicken saddex xabo waa lugaha, marka midka nadiifka iyo ma oolin ama busketiga, marka midka ku yaala iyo sida u samaysatid le waaye lafiya iska soo reebo jiirkii aan kasoo qaatay maadaama ilmaha aan siinayo. Spices ay spice ku yaala isticmaalaysa ani xawaajiyo huruud filfil liin dhanaantan mar walba cunada kama reebo, aniga cunada dasti u samaynaysa ilmahan maraq digaag yaa la iska siin wax yar cusbo. cunada waxaan sii karnaa 2 sano iyo wixii ka weyn 1 sano duu jirta cunugada waa siisan kartaa maadaama jadwalka halka sano noo socdo. waxir saliid 30 daqiiqo 40 saac fursad u haystid meelaa dhigaysa si oo dhanaanka oo gudaha ugu galo chickenka. marka waxaan diyaarsanaynaa khudaartii aan raacsiisan lahayn waa yaanyadii iyo qajaarkii iyo kaaroodkii iyo basashii afartaas diyaarsanaynaa. wax karina uma baahno inta already sidooda lagu cuni karaa, ama khudaarta cayriinka lagu cuno faa'iido badan waaye uu mitaad la ka dhigana maadaama ilmaha siineen ilmaha qajaarka ama yaanyadoo kale haddii ka isticmaalin cunada u saartid sidaan ugu sameeyay suugo u dhex kari ugu uumitay ilmahaada way ka heli doonaa wax yar oo macaan badan oo noqon doona mar walba cunada khudaarta ilmaha in loo dadbo ama si ay fahmi karin oo kale inaad ku siisid. marka toona isticmaalina toontan muhiim waaye maadaama chicken aan isticmaaleyno toonta muhiim u tahay insha Allah. waana toonta waa ku shiili doonaa ama marka dabka saarnamo isla markaa waa ku dari doonaa insha Allah. saliidda isticmaala waa sunflower ama saliid dufanka lahayn ilmaha loo isticmaal yaan laga badin, cusbada iyo saliidda waa dilaa insha Allah ilmaha laga ilaaliyo maadaama beerkooda oo hadda korinsho ay ku socoto ilmaha yaa laga badina cusbada saliidda sokorta saddexdaasba bini'aadamka oo dhan uma wanaagsano. marka isqabsatay chickenkii iyo basal iyo toon marka isqabsadaan kadib waxaan kusoo darsan doonaa kaaroodka. markaan kaaroodka aan ku darno xogaa yar biyaan ku darin maadaama kaaroodka uu adag waxa khudaar aan isticmaaleyno yaanyada iyo qajaarkana iyo basashana uma baahna badab oo mitaad kaliya u baahan iyo dhanaanka inuu u dhex galo. waa cuno yaro macaan badan suugo iska dheh ama maraq yaro macaan badan canjeelada cunugaada ku siisan kartaa roodhiga bariiska cad iyo waxaa rabta casha ugu dhigi kartaa quraac qado ana quraacaan ka dhiganay. marka quraac yaro macaan badan ilmaha si fudud ay kuugu cunayaan kuma dhibi doonaan wayna ka heli doonaan. marka dhanaanka khudaarta markay dhex gasho ilmaha khudaarta kaligood aa cunin sidaan ugu samayso way ka heli doonaa. waana high protein quraacda ilmaha si fudud ay kuugu celi doonaa. isbuucii 3 jeer siiso chicken ama malaayga ukuntan sidoo kale cunugaas si qurux badan oo kugu kori doonaa cunug caafimaad qabo ayuu noqon doonaa insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.